kale anigoo idin leh kusoo dhawaada barnaamijkeennii aan ugu magac darnay hagaajinta maqalka iyo muuqaalka. maanta barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa waa camera loo yaqaano Panasonic GH5 oo runtii ah kamarad aad u qiimo badan aragtaanba. kamaradaasi waa kamarad aad u qiimo badan oo runtii leh waxyaabo ku jira kamaradaha qaaliga ah. hase ahaatee maanta waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye qayb ka mid ah kamaradaas oo ah qaybta lagu kaydsado settingka ama sida aad adigu u jeceshahay inaad filimka u duubtid. haddaan si kale u dhigo, habeenkii dabcan sibaad u habaysataa si aad u duubtid meel mugdi ah ama habeena ama leyrku uu daciif yahay. maalintiina si kale ayaa u duubtaa, ama maalintii naftirkeeda aad u duubay ayaa waxa laga yaabaa inaad rabtid inaad frame iska bedeshid oo aad frame kale geysatid. adoo 24 ku duubay ayaa rabtaa inaad slow motion ka dhigto oo 60 geysatid ama wax ka weyn. intii aad geli lahayd kamarada aad bedbedeli lahayd waqti ugu qaadan lahayd ayaa waxa samayn kartaa settingkaas aad doonaysa ayaad waxa ku kaydsan kartaa number ka mid ah nambarada ay leedahay kamarada. waxay leedahay 3 number C1, C2 iyo C3. haddaba hadal yaan igu daalinaynin, waxaan gelaynaa hadda sidii loo sameyn lahaa. sidii aan u save gareysan lahayn ayaan idin tusayaa hadda. dabcan waxaa laga yaabaa inaad kamaradaada soo qaadatay, dibadda imaaday, kadibna aad ka furtay afkii oo aad aragtay iftiin aad u badan. marka u horeysa waxaan gelaynaa quick menu-ga FN2, kadibna waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo, maadaama ay ku xiran tahay iftiinkan badan, in aperture-keenu meesha arkaysaan hadda uu saaran yahay 2.0. haddaan kasii yareeyo iftiinku wuu sii badanaya. marka aperture-ka macnihiisu wuxuu yahay waa inta iftiin uu laserka kusoo deynayo sensorka. markasta oo aperture-ka numberkiisa uu yaryahay, iftiinkana uu badan yahay, aperture-kan uu aad buu u furan yahay. markasta aperture-ka numberkiisa uu weyn yahay, iftiinka soo gelayana wuu yaryahay maadaama uu xirmayo. marka waa bilcagsi. aperture-ka waxaan kaga hadli doonaa casharka soo socda. hadda waxaan kuma raageyno. marka aperture-ka ayaan kor u qaadayaa. markasta oo aan kor usii qaado waxaa arkaysaa in ay soo noqonayso aan arkayno waxyaabihii naga qarsoona oo iftiinkii nooga lumay. markasta oo aan kor usii qaado aperture-ka waxaa arkaysaa in uu soo noqonayo iftiinkii. TDN ayuu joogaa. waxaan oranayaa okay. waxaan arkaa weli in meelahaas rigmaha leh waxay tusaysaa in weli meelaha cloud-ka kale ama daruuraha in ay iga lumi doonaan detail yar, ama uu iga qarsoomi doono, ama caddaan ay noqon doonaan haddaanan hadeertan wax ka qaban. marka waxaan gelayaa kamarada. waxay leedahay meel iyadu highlights-ka laga sameyn karo iyo shadow-ga. waxaan already sii geeyey in meesha igu ficneed oo ah in shadow-ga uu kor yahay, highlights-kana uu yahay hoos -5. haddaba kuma raagayna kaas, waan kasii gudbaynaa. waxaan arkaa weli inay jirto. ISO-gaan fiirinayaa. ISO-ga haddaan kor u qaado waxaa badanaya iftiinkii, waxaana rigmihiina sii badanayaan saad aragtid, oo waxaa lumida detail badan, iftiin badan ayuu igu soo deynayaa. marka isaguna waxaan ku sameynaya inaan yareeyo oo aan geeyo ilaa meeshii jooga ahayd 100. waxaan u malaynayaa in aan weli u baahanahay in aan aperture-ka wax yar kusii daro. intaas inaan ku qancaya ayaan u malaynayaa. kadib waxaan eegayaa white balance-geyga. wuxuu ii joogaa hadda in kamaradu ay ii doorato automatic ayuu joogaa. haddaan doono waxaan ka dhigayaa inay meeshu tahay qorax, kaasna xaggaas uga tegayaa. waxaan kaloo bedeli karaa waxa aan ku duubay oo ah kuwa costume ah ayaa jiro, madow iyo caddaan aan ka dhigi karaa. haddaan doono waxaan ka dhigi karaa cinema D oo ka dhigaysa sida raw oo kale. haddana waxaan ka dhigi karaa cinema V oo iyada color igu sameynayso, laakiin waxaan jeclahay markaas inuu joogo natural si hadda anigu waxa uga bedeli karo. okay waxa weeyaan ku raagin
marka intaan ku qanacsanahay waxaan sameynayaa buttonkaas ayaan taabanayaa menu-ga kadibna waxaan tegayaa kiyaawadaas meesha u sawirantay kadibna waxaan tegayaa meesha ku qorantahay custom set memory waxaan arkaa inaan haysto ilaa 5 option oo C1 iyo C2 iyo C31 C32 iyo C33 marka waxaan leeyahay kan waxa igu save gareysaa markasta aan banaanka aadayo C31 okay baan oranayaa kadib waxaa laga yaabaa inaan kasoo tago banaankii oo aan soo galo gudihii baan soo galay waxaad aragtaa in madow ay tahay hadda waxaan sameynayaa hadda quick menu-gaan tegayaa waxaan tegayaa aperture-kii aan kor u qaada hadaay waa inaan soo yareeyo ilaa iyo 2.28 okay hadda waxaa waaye waxaa mudda inuu ka fiican yahay sidii hore haddaan ku qanacsanahay kanna oo aan leeyahay waxba kama bedelayo isagana waxaan oranayaa waxaa iigu save gareysaa C2 okay kadib waxaan tegayaa banaankii haddana waxaan doonayaa markaan in aan slow motion meel ku save gareysto maadaama aan u baahnaan doono marmarka qaarkood action ama wax orday ama waxaas kaleeto marka waxaan gelayaa menu-ga waxaan tegayaa meeshaas ay ku sawiran tahay kamarada kadibna waxaan tegayaa frame rate meesha ku qoran tahay kadibna waxaan leeyahay set kamaradan hadda waxay leedahay saa aragtid from 2 frames per second ilaa 180 frames per second oo slow motion aad iyo aad marka maxaan u baahanahay kan 120 waxaan oranayaa okay weli waxaa ku jira cadaan waxaan oranayaa marka aperture-ka kor u qaad enough kaasoo kale waa ku qanacsanahay haddaan doono waxaan oranayaa highlightska ama waxaan oranayaa highlightska oo kale inaan kor u qaado sidii hore ka yareeyo shadowgana aan soo yareeyo kadibna aan yiraahdo ii save garee kana C31 hadda wixii oo dhan waan save gareystay banaanka imid waxaan rabaa inaan videogii duubo oo caadiga ahaa waxaan oranayaa C1 baan tegayaa waa ujeedaa sida quruxda badan 24 frames per second ISO-ga waa 100 aperture-kana 16 ayuu ahaa okay waxaan rabaa inaan gudihii tago waa mugdi C2 baan tegayaa boom waa aragtaa sida quruxda badan ayuu markiiba kugu keenayaa haddana dibadii baan ku noqday waxaan rabaa slow motion inaan duubo C3 baan tegayaa 1 boom slow motionka uu siinaya markiiba haddana waxaan oranayaa C3 gaan taabanayaa waxaan leeyahay C32 black and white isi sawiraan rabaa inaan qaado boom lama dhameyn karo kameradan runtii wax badan ayaa ku jiro sida iyo isarag dambe hadaba barnaamijkeena maanta intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa nala aragteen sidii loo habeenayay ama sidii loogu keydsanayay kameradaas GH5 qofkii haysta anfacaysa intaas iyo nabad